nabad geliyo ha u ogolaan qalbigaaga inuu ku farxo amaanta dadka kale si aynan murug ku gelin dhaleecayntooda ka dhaadhici naftaada in wax kasta uu Rabbi kuu qoray ay faa'iido ku leeyihiin haddii aan fikirka badan la xakamayn wuxuu dhalin doonaa damacuna rabitaankuna ficilkuna waxa uu ku dambayn doonaa burbur jidka jannadu waa in la furo dusha sare halka cadaabtu ay tahay dhinaca hoose sidaa daraadeed waxaa jira halgan si loo tago jannada oo aan cadaabta loo aadin ilmada ugu xanuunka badan maaha tan ka timaada indhahaaga ee daboosha wejigaaga balse waa tan ka timaada qalbigaaga ee ruuxdaada daboosha wixii tagay way ku dhaawici karaan haddii aad in badan ka fikirto balse waad ka carari kartaa ama waxbaad ka baran kartaa